Saaka ayaa mar qura waxa uu dagaal ka qarxay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah halka lagu magacaabo isgoyska Banaadir. Dagaalkani ayaa waxa la leeyahay dad badan ayaa khasaare ka soo gaareen, qaarkood ku dhaawacmeen, qaarna halka ku geeriyoodeen, iyo maleeshiyaadkii dagaalamayay maleeshiyaad qaab u abaabulan qabiil ahaan ayaa la leeyahay waxa ay isku haystaan dhul halkaasi ku yaala. Ciidamada ka tirsan kuwa dowladda qaasatan Haramcad ayaa qaarkood ku dhaawacmay, taliyaha Haramcad halkaasi u qaabilsanaa ayaa la leeyahay dad badan ay waxyeello ka soo gaartay. Isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa istaagay daqiiqada iyo dhowr saacadood halkaas uu dagaalka si toos ah kaga socday, israasayn xooggan ay ishuwiyeen labada dhinacba. ilaa haatan isbitaalada Muqdisho ayaa soo warinaya qaarkood in la keenay dhaawacyo kala duwan oo dagaalkaasi ku soo waxyeeloobay. warar badan ayaa sheegay in la isku haysto dhul halkaasi ku yaalo oo dhul banaan ah wasaaradda ahaan jiray cidda gacan ku haynteeda ee iska leh. sargaal ka mid ah sargaalada dagaalkaasi u dhaxmaray oo maleeshiyaadka wati ayaa lagu magacaabay Liibaan Madaxi, iyo ciidamada Haramcad ayaa la leeyahay oo u abaabulan qaab qabiil ahaan maadaama dhulkani aad ay isugu hayaan laba dhinac oo kala duwan. sida aad sawirka ka dheehan kartaan isgoyska waxa uu ahaa mid jaam ah oo dadku ay aad u buux dhaafiyeen kolkii dagaalka dhacay ka hor. hase yeeshee dagaalkii ayaa halkaasi ku qabsaday, lama oga ayaa la leeyahay ilaa haatan xaqiiqada dhabta ee dadka shacabka ah ee halkaasi ku sugnaa ee qaarka gaadiidka ku kala gooshayay dhibaatada soo gaartay ilaa haatan lama xaqiijin kara. dadka ayaa ku waramaya in dagaalku ahaa mid aad u xooggan oo goobta mar qura ka bilowday, ilaa haatan aan la ogeyn khasaaraha guud ee halkaasi ka dhacay. waan ila soo socodsiin doonaa wixii halkaas ku saabsan.